magaalooyinka Garowe iyo Dhuusamareeb waxaa caawa ka bilowday shirar dhammaadkoodu uu yahay cidda qaadanaysa filla Soomaaliya xilli doorasheedkan. Labada shir ee labada magaalo ka socda hal calaamad ayaa u muuqata waxaase kala duwan dariiqyada iyo dad kala raba inay wax noqdaan. Si kale markaan u dhahno, siyaasiyiin hormuud u ah beelo kala duwan ayaa danahooda hoose ka tashanaya caawa. Labada shir oo isku xilli ku soo aaday uma muuqdaan kuwa isu jawaabaya waqti ahaan, balse danaha ayaa isu jawaabaya. Sidaan xogaha ku hayno, mid walba waxa uu daaran yahay damac ku saabsan xukunka filla Soomaaliya. Waxaan kala qaadaynaa labada kulan ee Garowe iyo Dhuusamareeb inagoo mid walba eegayna biyadhiciisa. Kulanka Rooble iyo Qorqor oo markii hore loo sameeyey daah doorashada guud ku saabsan iyo booqasho caadi ah ayaa hadda la xaqiijiyey inuu yahay mid qaas ah oo ay labada nin rabaan inay si weyn isugu xog wareystaan una qaataan go'aan la xiriira doorashada. Labada hogaamiye oo isku dhari ah waxa u muuqata inay beeshooda dhexe sanadkan leedahay fursad fiican. Shirkoodu laba xaaladood ayuu la xiriiraa. Mid waa dhammaynta madmadowgii dhowaan soo kala dhex galay labadooda. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa kal hore masuugay halka uu Qorqor ka istaagay khilaafkii isaga iyo Farmaajo, waxaana la filayaa in kulankan gaarka lagu soo afjaro xiisadaas. Qodobka labaad ee kulankooda waxaa lagu sheegay inuu yahay xukunka filla Soomaaliya. Hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxay go'aan ka gaarayaan in labadooda mid la sharaxo ama inay dhisaan siyaasi aan reerkooda ahayn oo ay Ra'iisul Wasaare kula heshiiyaan. Mawduuca dhabta ah ee kulanka labada nin intaas ayaa lagu sheegay. Hogaamiyaha Galmudug oo 37 kursi oo golaha shacabka ah iyo 8 sanatar saameyn ku leh, iyo Rooble oo Ra'iisul Wasaarihii dalka ah oo doorashada guudna saameyn ku leh, ayaa haddii ay isku raacaan meel gooniya waxaa la aaminsan yahay inay wax badan tari karaan. Waa markii koowaad ee labada nin ay qadiyad nuucaana rabaan inay isla meel dhigaan, tiyo aan la dafiri karin inuu waayadan jiray guux reerkaasi dhexdiisa ah oo u dhigan inay sanadkan wax beddeli karaan kuwaasoo aan xukunka dalka qaadan tan iyo Cabdiqaasim Salaad Xasan. Kulanka ka socda Garowe wuxuu midka Dhuusamareeb uga duwan yahay, waa la yaqaanaa isaga cidda la dhisaayo oo kama qaldana, waana Siciid Cabdulaahi Deni. Waxay labada kulan isku mid ka yihiin damaca reeraha. Fursad weyn ayaa u sawiran Siciid Cabdulaahi Deni oo ay gacanta weli ugu jiraan 37 kursi oo golaha shacabka ah kuwaasoo lagu dooran doono Garowe iyo Boosaaso. Deni wuxuu shaqo muuqata ka qabsaday kuraastii aqalka sare ee Puntland iyo Jubbaland. Waxaa la sheegay in Siciid Deni uu kala hadlayo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan 27 kursi ee taalla magaalada Kismaayo, dhaqaalaha la heli karo iyo haddii ay jirto fursad ay Soomaalida kale ku qancin karaan inay cod siiyaan oo ay la shirkoobaan. Waa laba kulan oo xoog leh. Dhinaca kale waxay kulamadan ka socda Garowe iyo Dhuusamareeb bannaanka ku tuureen qorshe doorasho oo sanadkan lagu midayn lahaa beelaha haysta madaxtinimada Puntland iyo Galmudug. Kulanka Dhuusamareeb wuxuu dhali karaa fursad Farmaajo xaggiisa ah oo looga qaato Ra'iisul Wasaare, laakiin kulanka Garowe sooma hadal qaadi kara inuu dhiso mid ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ee xamar ka soo jeeda. Labadan kulan ee awoodihii dalka lagu qaybsanayo waxay dhinaca kale si weyn hoos ugu dhigayaan rajadii mucaaradku ka qabeen doorashadan iyo saameyntooda intaba. Waxaa muuqata in awooddii doorashada iyo tartanka xukunka filla Soomaaliyaba inuu sanadkan dhex yaallo madaxda maamulada oo raba inay sanadkan saameyn weyn ku yeeshaan awoodda dalka. Dhammaadka labadan kulan kadib waxaa la filayaa inuu dalku si buuxda ugu dhaqaaqo doorashada golaha shacabka. Maxay kula tahay adiga?